السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود يا السود وهذا مركل إيه ولكن آذن كرامة هل كادي قد دعونا سنة وبرتان يوتيوب كل هي آذن كرامة هذه أي تمر كوجو رئيسية صوب وقطو فضلا سبسكرايب تيجو شرف سلامر كان ريح كم بلال كعسي يكون سو قرار مقالة حساه لي أنا هل كان سو قليو أنت هسي كدب داود يال وحنسدو كلنا قعد سنة يا إن عاد مقالة مركزي لايك إنه صار تنسي وقارو ملدر أن أنت كجسو قدبو maanta waxaan idin hayaa muuqaal runtii aan aad iyo aad uga naxay taas oo macnaha igu kaliftay in aan markaasi muuqaalkan ka soo sameeyo isla markaana idin soo gudbiyo si aad idinku naadira aragtaan ummadda Soomaaliyeed waxa haysta dhibaatooyin fara badan oo dhinac kasta aad eegto dhibaato ka haysata marka dhinac siyaasadeed dhibaato ka haysata dhinac dhaqaale dhibaato ka haysata dhinac cadaalad dhibaato ka haysata dhinac siyaasadda dhibaato ka haysata dhinac wax kasta haddaba maxaa keenay in dhibaatooyinkan ay nagu dhacaan waxa keenay sida dhacdadan hadda aan idin hayo oo kale marka ay bulshada ka dhex dhacdo taas oo kale keenaysa in cuqbadan nagu dhacdo waa aabba Soomaaliyeed oo xaas ah oo caruur haysta oo maxaan ku sheegayay noloshiisa dhacsanayay wuxuu sheegayaa in ay shirkad markaas shaqo siisay isla markii ay shaqada u siisayna ay ka dul keentay in ay markaas uu sheegay in ay markaas uu baadiye ka yimi oo ay wax isku yihiin dadkii shirkadaas iska lahaa kabacdi waxay sameeyeen waxay doonayeen in qofka ku dul barto ninkan ku dul barto yani shaqada kadibna marka uu shaqada u barto uu shaqada ka baaciyo ay ka baaciyaan oo ay ninkii kale ay ku bedelaan ay markaas keeneen ehelka ahaayeen taasoo ah runtii wax xaraana sababtoo ah waa aabba Soomaaliyeed xaas iyo caruur baa ka dambeeya meeshii irsaaqadiisu ay soo marisay bay ahayd ma fahantay ilaahay baa irsaaqada ugu soo dhiibayay haddar ba ilaahay irsaaqada waa siinayaayo demgaranaysa irsaaqada ilaahay waa waasac oo meel aan filaynin buu ka soo gariyaa haddii albaab uu ka xidhwana albaab kale ilaahay ku furaa oo hadeerba sida uu sheegay waxa uu samaystay goob shaqo oo gaara laakiin arinta aan doonayay inaan dul istaago waxa weeyaan cuqubada ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka jirta mid waa la cunsuriyadaynayaa mid waa la caayayaa mid waa la bahdilayaa mid waxa la leeyahay hoggaanka dalka uma qarantid mid waxa la leeyahay langaab baa tahay mid waxa la leeyahay gumeed baa tahay mid waxaas oo dhan waxa isku soo fuuqsadayba irsaaqadii dhuntii la isu taago loo istaaga dadkii oo maxaan ku sheegay irsaaqadii iyo in dhunta dadkii loo istaago oo la yiraahdo kan baa reer hebela kan baa nagu reera adiga shaqo ku siin meynay kaan nagu reerka aan shaqada garanaynin baan siinayna waxaas waa cuquba runtii oo wax aad iyo aad u foolxun bal intaan hadal idinku daarin ila daawada marka hore muuqaalka aabbahan Soomaaliyeed ee dhibaatada xun u geysatay shirkadda uu shaqeynayay waana qof aan soo wax bari shaqada ilaahay soo fasaxay marka waa nacab inaan dad u shaqeeyo maalinkaas go'aan ka qaatay ina marka raba jiifto marka raba soo shaqeysto aaba go'aan ku qaatay aniga hadda ka hor shaqo leeyahay laba motor meel talaaligeeyo oo waxa oo shirkad oo company adiga bil inta joogin waxa la keenay nin baadi laga keenay oo qoysar iska ah ninkan waxa la yiri shidaalka motorasha ku shuba bishi 600 aan ku shaqeeyahay 600 qaadahay markaas ninkaas markii la keenay ninkaas waxa la yiri xoog ku yahay ninkan shidaalka iyo ku soo qaada baabuurka motorka ku shub waa ku kaalmeeyaha aniga waxa u maleeyaa kaalme caadi u maleeyaa waa nin aniga igu maqan oo meesha wax ka samahayahay oo lida fiirihayo aniga waxaan nin makaaniisna waa ahay ninka marka shidaal ku shuba marka oo lida fiirihayo saasoo idaba taagan yahay dhahay si daacad ah ninkaas wax u baray saan waxyeel wallahi muddo bil oo wixii ku wada fahmay ninka markaas la yiraahdo saaxib waa fasaxantaa leedahay waa mahadsantiina waa inaga sugaya dhahay waxaan filahaayay ahayna maahayna waxa waay ilma ahaan dhahay wadlukuna ilma ahaan dhahay waa sugaya arintan qisadaasi kadib aabba Suleymaan oo markiisii hore ahaa farsamo yaqaan iyo alxamiiste ayaa keensaday fikradan ah inuu soo saaro burkujooyin isagoo u gaara oo hal abuurkeedu uu leeyahay halkaas uu go'aan ku gaaray inuu qof dambe u shaqeeyo dabcan muuqaalkan si aad ku wada daawateen aabbahan Soomaaliyeed waa dhibaataysan oo dhibaataysna markaasi hadda ilaahay uu ka soo furtay ilaahay baa faraj kale oo khayr qaba u furay laakiin ujeedadu waxay tahay in muuqaalkan u sameeynay war Soomaali hadday nahayeena isdulmiin
si aynu horumar u gaadhno ammaan u helno maxaan kuu sheegay ganacsigeena u bulaalo siyaasaddeena u bulaasho heshiis waddanka uga dhaco maxaan kuu sheegay ay nolosheena ugu hagaagto dulmiga dhexdeenna roob la-aan baan nahaysay ku leeyihiin cudurro aan la garanayn baa waddanka ka dilaacay dhakhaatiir ajanabi oo dadkii qalanaysaa soo baxday 59 wax oo ayna hore waddankeena ugu aqoon ayaa hadda kusoo baxay waxaas wax kale ma aha waa cuqbadan dhexdeena ka galayno waxaan codsanayaa oo ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay muuqaalkan sii baahiyaan dadka kale sii gaarsiiyaan si ay wacyigelin ugu noqdo innagana qof kasta oo daawada waxaan ka codsanayaa inuu arko qof Soomaaliyeed dulminaya hadduu arkan inuu war dulmiga ka daa isaguna aanu dulmiga samaynin ummadana uu ka sii wacyigeliyo inay dulmiga sameeyaan li'annaha ummadda Nabi Maxamed ummadaha kale waxay kaga duwan tahay xumaha way iska reebaan wanaagana way isfaraan sababta darteed ba waxay maanta yowm qiyaamo noqonayaan ummadda ugu faraha badan ee markaas jannada geli doonta laakiin ummadeena Soomaaliyeed waa ummad meel kale u socota diinta gaar baan ka haynaa waan maranayaa inta ku dhaqmaysaa way iska yartahay hadda sharaa'igta iyo maxaan ku sheegay meeradaha iyo meelaha waaweyn laga shaqeeyo dadka wax ka soo galayaan iyo dhammaan qof walba qofka ehelkiisa haddaan lagu waji garanayn shaqada lagu siin maayo haddii lagu siiyana mid baa laga dal keenaya sida odaygan oo kale inta aad baranaysa shaqada marka aad barayso baa shaqada joogaysa warniga waxaa ummadda Soomaaliyeed maxaan ku sheegay dadka cuqubada sameynaya iska daayaan ee ummadda Soomaaliyeed kamid ah ilaahay ha laga yaabo gud madow 3 mitir ku galaya in adeer ma yaqaan ma taqaan maanta yowm qiyaamo ilmaha dhashay baad ka cararaysaa iska daa wax kale ee labadii isdhalay baa kala cararaya hooyada baad ka cararaysaa hooyada baa wiilkeeda ka cararaysaa waa faantay Soomaha marka iska daaya waxa weeyaan cuqubo wax kasta oo kale waa laga soo kaban karaa laakiin qof bili aadan halka u istaagto bal imagine aabaa tahay hooyaa tahay ilmaha gisaaka waxaad afka u galisay ma haysid waad kacday meeshii aad maxaan kuu sheegay shaqada ka aad ku ogeyd aad ka shaqeynaysay baad u shaqo tagtay adigoo faraxsan isla balkan magaranaysa ay reerkaaga wax soo saar waxa lagu yiri shaqadii waa laga baaciyeeyo mid reerkaaga aan keenay subhanallah wax aad iyo aad looga xumaado run ahaantii ninkan waa nin xirfad leh wax bartay meel ka soo baxaya isaga afkiisa ku sheegay inuu mar dambe qof u shaqeyn doonin inuu isagu iskii u shaqeysto maahaane laakiin dad fara badan oo xirfad lahayn baa jira noloshooda iska hooseysa jira haddii halka loo istaagana ilaahay farajkiisu waa furan yahay mar walba ilaahay albaabka loo furayaaye laakiin ay xaaladdu ku adkaanayso ma fahanteen marka niyo ilaahay laga yaabo intaas ayaan muuqaalka soo gabagabeynaya walaalkeen aadan karaama haddii muuqaalka uu idin cajabiyay markaas saara like isla markaana share gareeya haddii sidoo kale aad nagu cusub tahay markii ugu horreysay aad soo boqoto fadlan subscribe nagu sharaf isla markaana riix gambaleelka casi ay ku soo gaaraan muuqaaladan halkan ku soo gudbino walaalkeen aadan karaama kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh